كوفان نينكاغا waxba kaama gelin naag kale waxay tahay iyo waxa ayada qalbigeedu ka guuxay nin la iskuma halaynin iyo afaraas waxba kaama gelin adiga ku faan ninkaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالقة حالكين كورما في عنتهين صحابتي إذا قالقة soo dhawaada asxaabta qaaliga ah asxaabta bariyahan waan kala maqneen oo kala caajisnaa mashquul adduunka iska ka haystay almost YouTube 2 weeks oo kala ka maqnaa asxaabta qaaliga ah soo dhawaada insha Allah hadda wixii ka dambeeyo waa isla joognaa waxay noqon doontaa waxyaabo fara badan soo gudbinayna insha Allah asxaabta qaaliga hadii aad igu cusub tahay subscribe isaar walaalaha qadarinta iyo qaayaan mudan hadii aad nala joogteen waa ku maasantahay like dhac ku sii walaalaha waxaynu aragnaa maalin ka dambeeyso in fikrado cusub ay gabadh ka dambeeyso ay soo dhigayso fikradahaas oo ah dadka say u kala duwan yihiin oo maskax kala duwan yihiin say u kala fikrad duwan yihiin waxaa jiro fikrado aan adiga dani kugu jirin oo maskaxdaada shock ku abuuri karto ee fikrada adiga ku anfacayo oo hadii aad qaata wax ku anfacaya ah marka fikradaha badan gabdhaha ay soo gudbiyaan ina wada qaadato muhiim ma aha laakiin waa inaad fikradaada kala dhacaysa wixii aad ku muhiimsan ka qaadatid marka bariyahan dambe waxaa jirta arrimo oo gabar walbaba inta soo rafaaday waqtigeedii faraha badnaa hor u soo qaadatay waqtigeedu ku filan soo qaadatay oo dunidan wax walba ka soo aragtay fikrad soo jeedinays dadka qaar waxay aamini karaan in ay tahay fikradaasi wax saxan ay tahay qof hadda cusub oo ilmo yar haysto oo familkiisa iyo gurigiisa inuu dhaqdo rabo ma dhihi ka fikradaas oo kale macnaa ma anficayso waxay ku anficaynin guri baad joogtaa adiga gurigaada ilmahaaga hadda dhow isku cusubtihiin qofkan qof waxa waaye arag oo waxaas adiga hadda ku jirtidba yaa wixii hadda adiga ku jirto waxyaabaha dhibaatooyinka adiga hadda ku jirto inay ka hadlaan laga yaabaa kuwa qaarna wax hore oo kugu dhacay inay ka hadlaan laga yaabaa marka kaba soo qaad dhibaato hadda ku jirto ay dadka qaar ka hadlayaan oo ka bixi kartaa saanyeel inta fikradahaas oo kale markay kugu soo dhacaan waxaa la rabaa in aad si fiican ugu baaraan degtid waxyaabaha qaar oo dani kugu jirin inaad ka baxdid wixii dantaada ku jiro oo kali aad fiirisid maanta dhibaato ay jirto oo dhibaatadaas ay saas yeel waxaan yeel inta yeel lagu dhaha inaad iska yeeshid ma aha inaad fiirisid gurigaaga hadii gabar la qaba tahay xaas tahay ilmahaaga maxaa u fiican familkan guriga maxaa u fiican noloshaan ay sidan ma ku sii wadan kartaa isaan ma ku anficay waa ku anficaysa inta ku jirto insha Allah way hadda ka bacdi inaan aan dulqaad sameeyo aan samir sameeyo wanaagayga aan sii dhiso hadduu ninkan hataa dhib badan igu haay xitaa inaan u samro sababta caruurtayda dartood inaan u samro waa inaan dhahdaa maahane fikrada qaar oo dani kugu jirin inaad ku oradid way saxan tahay waxaana tisaan waaye kan waaye waxaan haynaa gabdha sida wiil baa gabadhiin gabadha saaxiibatihiin ayaa waa la xumeynaya camal ilaa rag isku wada mid ma ahan guryaha la wada dhisan ba isku mid ma aha sidii kor u kala duwan yihiin gudahan u kala duwan yihiin maxaa dhacaysa gabar saaxiibada oo kale ninka soo xumeynaya hebelkiisaas ahaa saas uu yeel kanba yeel naagtu wuu xumeeyay naag buu la gursid wax saas maqlaysaa markaas adna la jaan qaada tiim saas baa saas muu yeelaa nin dhawaala waa iska saas ninkaagii ku fiicnaay oo ku wanaagsanay oo gurigiisii familkiisii cidiisii jeclaa isnacsiinay bis waa isnacsiinayba taas la yeelay adiga saas uma ku dambeysay fikrad noocaas iska dhaadhicine waa isnacsiinay bariyahan dambe in rag iyo familigi qoyska deganaa in la isnacsiiyo ayaa wixii lagu samri jiray xitaa oo lagu samri jiray xitaa lagu samro bariyahan ma aqaan sababaha jiro waxa waaye dadka wax sheegay macna dadka fikradaha kala duwan soo jeedinay ayaa batay saa darteed qof walba fikirkii la sheego buu qaataa isaasan dhigi karaa ama wixii qof lagu leeyahay ku ixtiraameyn ku yeelaynin saan ku galaynin waxaan ku sameeynin waxaas ma jirto family dhisana tahay gur dhisana tahay
waxaa la rabaa fikirkaaga inaad ku beesgaraysid caruurtaaga ilmahaada mustaqbalka samirka inaan ka qayb qaato waaye nolosha qoyska noloshiisa inaan ka qayb qaato waaye ninkan maadaama uu duurka jira anigana gurigan joogaa gurigan wixii liiga baahan yahay waa inaan sameeyaa dee sida hadda caruurta oo kale dhaqaalaha caruurta inaan dhaqaaleeyo waaye wixii la ii dhiibo maanta oo kale inaan ilaaliyo waaye xigta asaga lama tartami karo asaga waxaan la tartami karaa asaga subaxii uu baxaa magaaladiisu aada ganacsigiisa howshiisu wata aniga gurigaan dhex jooga guriga aniga caruurteeda haaya aniga dalkayga qayb weyn aan ka qaadanaya qoyska qaybka ugu muhiimsan aniga haaya aniga haddii aan asaga la tartamo labadeena marka waxay noqonaysaa inaan anigii dhexda ka baxo ama asagii dhexda ka bax labadaas mid un bay noqonaysaa guri laba ay ku tartantay ma dhismo marka sifo qoyska lagu dhiso waa in la diyaar gareeyaa samirka ugu muhiimsan lagu samraa dhibaato kastoo arkaysid waxaa loogu gudbaa inaad ku samirtid waaye gabar kasta oo dhib haysto waxay ugu gudbi kartaa samirka waa samirka waxa ugu muhiimsan ee nolosha adduunka dhisayaad aragti waa samirka sidii aad aragti 25 sano qoys isqabaana lagu leeyahay caruur waaweyn bay dhaleen iyay way noqdeen lagu leeyahay sababta keenta mataqaana way isu samreen halkaas dhibaato la'aan ma taalo way isku dhiboodeeteen way isku samreen dhib naag baa la guursanaya waa la dhibaaya waa la caynaya sudohdi cayna istaghfar sudogi ma ahane sudohdi cayna gabdhihi dhibaateynaya familiga dhibaateynaya way iska samraysaa marka samirkaas qayb ka mid ah in aad qaadatid laga rabaa walaalaha qadarinta qaayaa mudan fudeedka degdegan iyo waxyaabaha nagu jiro ma naqaan meel ay noogu imaadeen waxaa la rabaa familka in la isku xiro familga in la isku xiro wadada isku xiri karto oo ugu samri kartid inaad ugu samirtid waa macnaha ma inaad ordid saan u yeelo asagana muxuu isaan yeelo maanta meel buu aaday sababta ugu sheegay waa maxay uu baxay maxuu bixi inaad daba taagnaatid ma ahaba iska daysid isaga dhan xagga iska dhigtid maxa qorshihii iyo daba orodku waa soo dhameys caruuraad haysataa xilliga caruurtaada ka fikir mustaqbalka caruurtaada dhis hadee wiilka waa la soo dhisay dad baa soo dhisay waa 20 jir inaad ka fikirtid ma aha waxaad ugu fikir kartaa qaybta kugu lahaa fikir ahaan qaybta asaga kugu lahaa guriga waa inaad siisa laakiin anigu kuma dhahay la barbartan la isbarbar dhig ninkaas qaybtu halahay qaado asaga isku mid ah u noqotiin labadiinaba hal taajiro ma dhihi karna oo horumarka labadiinaba gaar leh ma dhihi karo sababtoo ah adi waxaa tahay hooyadii guriga ayaa tahay caruurtaas ayaa horumar u tahay ilmahaagii baad korinaysaa waxaad ku jirtaa nolol kale qurux badan oo soo kobcinaysaa qabti banaanka aad ku qaban lahayd guriga baad ka sameynaysaa uur mar tahay mar waa umulaad tahay mar caruurta gacanta ku haysaa oo iyago yar oo 2 sano gaarin baad gacanta ku haysaa hada adigoo sidaas ku jiro oo waa la tartamaya ninkan aad dhahdid aniga guriga inuu meesha ku burburaan qabaa guriga inuu meesha halkaas ku burburay ayaan qabaa walaalayaal samirka hala badsado guryahan waxay ku dhismi karaan oo aad aragtay guryahan aad aragtay waxay ku dhismi karaan samirka inta badan samirka ay ku dhismi karaan samirka aan iskugu dardaaran aan iskugu duceyno walaalaha qadarinta iyo qaayaa mudan haddii aad ugu cusub tahay subscribe iyo saar haddii aad nala joogtiin waa ku mahadsantahay daawashadaada quruxda badan walaalayaal waxaan rabnaa in aan samirka badan guryaha walaalahan aan dhisna wanaaga ninkaagana aad ka shaqaysid ninkaaga haddii aad hore ugu sheekaysay oo gabdhaha ugu sheekaysay hadda wanaagiisa ugu sheekay wanaagiisa fiicnaantiisa dadkan waa hawaay waa waxa aad shal ku sheekeynayso bay ataagreen laakiin saacad walba ninkaaga waa inaad ku faantaa hadduu rabo asaga ha xumaado waa ilmahaaga aabahood laakiin ninkaaga always isagoo markasta waxaa waaye waa garabka ilmahaaga xumaati kasto ay ku dhacaan dad ku xun waa jira kan xun kama sheegay ninka xun ma sheegay walaalaha qadarintii qaayaa mudan subscribe isar haddii aad ugu cusub tahay bye